kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena xigashada wararka. Fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka fur si aad u ogaato muuqaalada iyo wararka iyo warbixinada halkan aan idiin soo gelino. Dababixii fanaanada qaaliga ah ee Naseexo Indho iyo xafladeeda arooska oo noqday mid aad looga wada hadal hayo dhammaan geyga Soomaalidu degto. Arooska Naseexo Indho iyo toddobabaxeedu oo socday in ka badan 40 cisho waana waxa ay keenay hadal heynta aadka u badan. Naseexo Indho oo noqotay fanaanada iskoorka kaas hablaha Soomaalida ku jabisay qiimaha arooskeeda iyo toddobabaxa arooska waxay ahayd gabadha kaliya ee qarash ku baxa aroos ama xaflad meher gabadhii ugu qarashka badnayd sanadkii 2019 ilaa 2020. haddaba daawo subscribe noo saar like na dheh siina share gare asxaabtaadan la wadaag waanaad ku mahadsan tahay daawadashada muuqaalkan. أصحابتي درتنا سلام وياك خبطتي هيا قصدي بيسي ها إن أنا أسبوع أربعة كل كيسي stay tuned. اوكي لوس اند أنا يا كاله دراما شو adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin. kulanti wacan oo wanaagsan ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waa bandhiga daraama show maanta idiin soo bandhigaya arooskii fanaanadeena qarniga Naseexo Indho iyo mar labaad arooskeedii oo si ballaaran loo soo agaasimay waxa uu ka dhacay dalka Ingiriiska magaalada London. waxaa isugu yimid maqaawiirtii iyo fanaaniintii heer sarada ahaa ee Soomaalida ay ku dhaadan jirtay. halka waa la isugu yimid oo looma kala harin ma kuwii la jeclaay ma kuwii aan aragtay dhexe kuwii hore kuwii dambe wax u kala haray malo waa loo istaagayo arooskii hore kan baaba beenjiri maadaama uu xaajiga garabkeeda taagan yahay oo gacanta ku dhagay. maanta war kama gaarayo waxaan halkan idinkugu soo bandhigayaa oo mirmir aan idinkugu soo gudbinayaa de fanaaniintii halkaas yimid ma kuwii heesayba ma kuwii halka waxaan ku iraaday maashaalka soo duubayba maxaan sheegaayoon ka iraadaa de hambarye un baan leenahay haddaan naabahda Soomaalida shidan oo anigu aan wakiilka ka ahay waxaan leeyahay isku waara oo noqda kuwii mar walba isku tanaada. أصحابتي درتنا سلام وياك خبطتي هيا قصدي بيسي ها إن أنا أسبوع أربعة كل كيسي stay tuned. اوكي لوس اند أنا يا كاله اوه نني nolosha aadamiga guushiya barwaaqada gurka hogaanshe nolosha aadamiga guushiya barwaaqada gurka hogaanshe garad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu carabku ku galo gurwacan ku joogtaye zabuure wiilgabo garad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu carabku ku galo gurwacan ku joogtaye zabuure gurkiinu guurqay gurigiinu gurinagi gurkiinu guurqay gurigiinu gurinagi gulowkaye arooskeena aamiin allow tiiri aamiin allow taqabbal aamiintaan anaguna u raacinayna Naseexo Indho iyo xaajigeeda Xuseen Biita
dee fanaaniinta nimcayaasiin kaliya maahan farxiyo fiska imaatay waxaa kaloo yimaaday oo halkaasi kasoo qayb galay fanaaniinta hal iyo laba haddii aan ka sheegane fanaanada kale ee xaawakiin faadumiina dee fanaaniintii aan horey osla u aadin oo arooskii ka dhacaya dalka Norway aan uga qayb galin ayaa halkaasi tagay sidoo kale halkaasi waxaa laga tabayaa fanaanadii la kaxaajo wacays talow xaawakiin iyo waxaan ku iraaday fanaanadan kale ee faadumiina markay imaaday bay gab ka siisayo waa isaga tagtay lama garanayo gadaal bayse ka soo bixi doontaa inkastoo dadku markii ay dhibaato iska qabsan karto wax ay ku dhici karaan haddana nasteexaandhay laakiin isku wanaagsanayeen baan ogeeno haddana iyadoo magaaladii la joogto sin safar ahayn sababtay uga qayb gali weyda arooskoo looga dhex jeedi waaye ma garan karno gadaal bayse ka soo bixi doontaa wixii jiro falanqayntu way inoo dambeyn doontaaye hase yeeshee miyaan ka gayoon karnaayoon ka dhex bixi karnaaba arooska iyo dadka kasoo qayb galay si aan mid inkugu tusna ayaan halkaan u joognaaye bal iminkana waxaad nala daawanaysaan bal qaybtan iyo mushaaxa iyo heesta iyo farxadda halkan ka dhacay adduunka ugu jeclaa ما شاء الله لا قبلين أنا ما كسعودة قروح ذبضن وانا كنا ما حقي بسلوس I know سوى أنا ولا شيء وأدوكنا وكوجع على سوى يا my sister من أدوك وكوجع على سوى love you واو 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 بشوال الشدية أروس كنستي حواي إسكفير my sister أرك my sister خبريرتي اسك أرك أنا نهائي إفير تليفون بلاد ولا جوجا قروح ليدا fanaanadii farxiyo fiska halkaas waxay ka qaatay heesteedii dhagdhe oo jaan iyo jiiba la isla ruxay markii halkaasi fanaaniinta badankoodba ay iyo arooska inta imaatayba shacab iyo fanaaniin iyo dadweynaha kale ee caadiga ah oo mas'uuliyiinta lehba looma kala harin ayaan oran karaa arooskani dee sanadkan 2019 dhammaadkiisii oo dhanba waxaa hawada naga haystay arooskii nasteexa indho oo noqday arooskii ugu hadalhaynta badnaa aroosyada ka dhaca Soomaalida أركض عادي
inaad daacadii tahay axdigeeni daayicin igu dhaara diinto degdeg aan warkaa helo fartoon beri maayay ahayd de waxaan ugu talagalnay arooskii nasteexa indho fanaanad nagu qaaliya maadaama ay tahay daraama show haddii aan nahay waxaa mar walba annaga nagu qaasa fanaaniinta soomaaliyeed og waxa ay noo yihiin lafdhabar maadaama dadka aan ka falanqoonayna iyagu yihiin inkastoo fanaaniinta badankoodu ayba ismoodinba dad caana oo haddii lasoo hadal qaado maxaa laysoo hadal qaadayaa dhahayo war dad fanaaniinta adduunka waa lasoo hadal qaadaa oo waa la buunbuuniyaa annagana fanaaniinteena haddii aan sheegna dhib naguma ahan iyo ceeb ma garatay marka waxa wanaagsan in aad caanimadaada aqoonsatid oo adiga aada is abuse karen arooskii nasteexa indho maanta waan idiin soo gudbiyey waxaan u malaynayaa in aad ka wada hesheen oo fiidiyoyaasha iyo waxyaabaha aad ku daawateen barnaamijkan oo badankiisaba iska ahayd hambalyada iyo dadka kasoo qayb galay in aan idinku tuso kolleyta dadka kasoo qayb gala tirkoobka markii uu noo dhammaado iyo dadka ka gayooday iyo dadka maaragtay imaadayba waan idiin soo gudbin doonaa hadduu allaha awoodda liyo raali ka noqdo adigu ha u dayma la-aan oo nagu xirnaaw oo subscribe saar channelka soomaalida shidan si aad ula socotid wax walbo cusub oo ku saabsan dadka caanka ah ee soomaaliyeed adduunka wali uma aanan gudbina dee aroos wacan baan leenahay nasteexa indhana waan u hambalyanaynaa markii kaliyay tashaday go-aankii waxaan ka dhigay allah markii kaliyay tashaday doqaygu midkuu kasbada kalsooni inaan iraa kaliya laabaan rabaa kaligiis unbaan jeclahay kaskacad baa aan doonaya oo kaliya kayd sagaaliyo labaatanka Diseembar oo ah markii la aasaasay Soomaalida shidan sanad guuro wanaagsan daawadayaasheenna sharafta leh waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo nagula ciida oo nagu daawada Hey,